waxaan wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka ee VOA waxa marti noo ah oo aan xafiiskeeda ku booqanay duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges oo aan kaga mahadnaqayno inay idaacadda VOA ogolaato inay xafiiskeeda ku soo booqato. Betsy ku soo dhaw barnaamijka VOA. soo dhawo. aad baan ugu faraxsanahay inaad waliba af Soomaali igu soo dhaweynayso. waa tahay waxaan guda galaynaa waraysigan kugu nimid sidaad og tahay waxaan jeclahay in arrimo fara badan oo ku saabsan Donald Trump iyo xaaladda Soomaalida aan wax ka weydiiyo. sideed u aragtaa wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump ee isdaba jooga ah gaar ahaan kuwa lagu joojinayo dadka muslimiinta ee ka soo jeeda toddobada dal ay Soomaalidu ku jirto maadaama magaaladaada ay Soomaali fara badan ku nooshahay? Well, the actions that Donald Trump has taken are completely un-American. Tallaabooyinka uu qaaday Donald Trump waa kuwa ka hor imanaya Mareykanimada iyo waliba dastuurka dalka waana ka soo horjeestay waana sababta aan bulshada ula hadlay oo aan uga hor imanayo siyaasadiisa iyo waxa uu sameynayo. waan ogahay sida ay bulshada Soomaalida muhiimka ugu yihiin magaalada Minneapolis iyo guud ahaan dalka Mareykanka marka inuu isku dayo wax xadidaya ama xanibaya waa wax aanan Mareykanimada waafaqsanayn. waan jeclaan lahaa inuu arko bulshada aan arko anigu waa ay caddahay inuusan lahayn indho uu ku arko dhaga uu ku maqlo iyo wadna uu ku dareemo waxa ay yihiin Soomaalida Minneapolis are fighting what he's doing. waa tahay waxaa jirta in meeyar badan oo aad ka mid tahay ay dhaleeceeyeen wareegtooyinka madaxweynaha door intee la baad ka qaadan kartaan in aad wax ka qabataan arrintaas marka laga yimaado dhaleecayn oo kale? Well, it's incredibly important that we're vocal. aniga ka hogaamiye ahaan waan ka soo horjeedaa waxa uu sameynayo Trump. waxaan weydiistay shaqaalaha dawladda hoose iyo hogaamiyaasha kaleba waxyaabaha aanu sameyn karno si aanu uga dagaalano arrintaasi. sidoo kale maayirada kale ee magaalooyinka dalkan Mareykanka ayaan weydiiyay waxa aanu sameyn karno. waxyaabaha aanu ogaanay waa in abaabulka bulshadu uu shaqeynayo. bulshadu waa ay isku imaanaysaa anigana waan hor istaagayaa bulshada oo waxaan ku leeyahay arrintan waan ka soo horjeedaa waana inaanu u dagaalanaa sidii aanu ugu hortagi lahayn. waa gartay waxyaabaha uu madaxweyne Trump doonayo waxa ka mid ah in ciidamada amnigu ay cid ay uga shakiyaan in aanay Mareykan ahayn oo ay wadanka soo galooti ku tahay ay wadooyinku istaajiyaan isla markaasina ay sharcigooda weydiiyaan. arrintaasi magaalooyin badan oo ku jirto Minneapolis ayaa ka soo horjeestay isaguna waxa uu ku goodiyay in lacagtii ay dawladdu siin jirtay magaalooyinkaas iyo cidii diidaba uu ka goosan doono. maxaad qaadaysaan oo talaaba? Well, the bigger risk we face as a country is of having our democracy tumble. qatarta ugu weyn aan wajahayna wadan ahaan waa in dimuqraadiyadeenu ay sabeynayso. bulshadeena waa u muhiim iyo qiimaheena Mareykanimo inaanu ka falcelino waxa uu sameynayo Donald Trump. lacagtu ma ahan su'aal taagan in lacagta magaalada la meeleeyo waa dhibaato. dhibaatada ugu weynisa waxay tahay haddii aysan bulshadu ammaan ahayn haddii aysan bulshadu u yeeran karin booliis marka ay ammaan darro dareemaan iyo in ay dambiyada soo sheegaan marka ay dhacayaan oo iyaguna ay arkayaan. dhibaatadu waa taas waana tan u baahan inaanu iska kaashano. haddii uu Donald Trump uu doonayo inuu bulshadan reer Minneapolis u yimaado waa inuu marka hore aniga iga soo bilaabaa oo uu isoo maro. waatahay dabcan waxaan u maleynayaa sheekadaasi inaad u babacdhigi doonto. madaxweyne Trump waxa uu maalin ka hor doorashadiisii uu yimid magaalada Minneapolis garoonka waliba magaalooyinka mataanaha ah halkaasi uu weerar ku qaaday dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee adigu mas'uulka ka tahay iyo waliba guud ahaan gobolka Minnesota. adiga shakhsi ahaan waa maxay fikirka aad ka haysato dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan gaar ahaan kuwa magaalada degan? bulshada Soomaalidu waxay si adag oo weyn ay muhiim ugu yihiin magaalada Minneapolis. dhismaha magaalada ay qayb ka qaateen maalgashiga iyo wanaajinta magaaladana door weyn ayay ku leeyihiin. sidii aan horeyba kuugu sheegay waan jeclaan lahaa in qof walba ay arki karo bulshada aan anigu arko ee aan halkan wada dhisayno
dadkani magaalada waa ay maalgashanayaan waa ay dhisayaan mana aha taas oo keliya tan aan u difaacayno magaaladan waa ay wanaajiyeen Soomaalida waa taas sababta ugu weyn waana taan ku difaacayno wax walbana aanu ugu horeyno bulshada Soomaalidu ma ahan dhibaato ee waa amarka madaxweyne Donald Trump waxa dhibaatada ah bulshada Soomaalida ee Minneapolis waa hanti qiimo leh valued and loved deeply. waxaa la sheegaa in dadka laga tirada badan yahay ee degan magaaladan oo Soomaalidu ku jirto ay dhaqaale ahaan ee ka nolol hooseeyaan marka laba dhigo dadka cadaanka isla magaalada degan muddadii aad adigu magaaladan maamulkeeda haysay maxaa tallaabo ah oo aad qaaday si kor loogu soo qaado dadkaasi noloshooda And so the work I've been doing the last 4 years howlaha aan soo hayay 3 ilaa 4 sano ee aan xilkan hayay waa arrimaha dhismaha iyo guriyeynta taasina waxay ahayd waxyaabihii bulshada ay ugu baahida badnayd ee aan ka maqlay iyaga abuurista shaqooyinka iyo xirfad barista dadka si ay shaqooyin u helaan ayaanu wax ka qabanay sida xarumaha shaqo abuurista ee aanu ka sameynay xaafadda Siderside oo ah mid muhiim ah waxaanu haysanaa dad badan oo shaqooyin curinaya shaqooyin yaryar leh waxaanu haysanaa dad badan oo shaqooyin curinaya iyo waliba ganacsiyo yaryar si aanu u xaqiijino in magaaladeenu ay si wanaagsan ugu shaqeynayso qof walba gaar ahaan dad kale ganacsiyada yaryar oo aanu siinayno waxyaabaha ama adeegyada ay inooga baahan yihiin iyo tababarada si ay bulshada ugu adeegaan waxaa sidoo kale iyana muhiim ah xaqiijinta dhanka ammaanka waxaanu shaqaalaysiinay saraakiil bulshada ka tirsan oo si wanaagsan ugu adeega bulshadooda those are things we can do with and for the community no matter what Donald Trump says waata su'aasha ugu dambaysa ee barnaamijka ku soo gabagabeynay hadii aan ku weydiiyo jaaliyada Soomaaliyeed iyo muslimiinta gobolkan degan waxay walaac badan ka qabaan habdhaqanka dawladda Donald Trump kuwa xataa dhalashada Mareykanka haysta ayaa ka cabsanaya in lagala noqdo dhalashada ay dalkan ku nool yihiin sidoo kale waxaa jirta dadka qaar in lagu la kacay falal isirnacayba haddaba cabsidaasi maxaad ka oran lahayd It is heartbreaking to me that it's just heartbreaking to me that people are so scared and it's understandable to waa mid qalbigayga dhaawacaysa in ay dadku sidaasi u baqaan waana mid aan fahmi karno waayo madaxweyne Mareykan ayaa isticmaalaya erayo islaam nacayb bulsho nacayb ajnabi nacayb iyo jinsi ah fariintaan arintaasi ka leeyahay bulshada Soomaaliyeed waa in aan garab taaganahay magaaladuna ay garab taagan tahay boqolaal iyo kumanaan dad ah ayaa ina garab taagan idinkana bulsho Soomaali ahaan idin garab taagan waxaan sameynaynaa wax walba oo aan bulshadan ku difaacino kuna garab istaagayno si aan u xaqiijino in bulshada Soomaaliyeed la qiimeeyo lana ixtiraamo sida saxda ahna waa sidaas waan idin dagaalami doonaa qof walbaana waan u dagaalami doonaa waxaanu leenahay hanaan difaac oo aan waliba sii xoojin doono hadii aanu u baahano waxa ugu dambeeya waa in qof Mareykan ihi idinka raali geliyo waxa dhacay waan ka xumahay waxa dhacay waana ka xumahay inkaas uu yahay madaxweyne la doortay oo fariin nacayb ah faafinaya ogaadase waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo fariin jacayl ah iyo taageero idin soo diraya waanu isku imaanaynaa qof walba hina taa wuu dareemi doonaa aad baad mahadsantahay thank you very much You're very welcome thank you aad bay u mahadsantahay taasi waxay ahayd duqa magaalada Minneapolis Mayor Betsy Hodges waxa xafiiskeeda magaalada Minneapolis igu waramaysay daawadayaal intaynu barnaamij xiiso leh oo kan lamid ah dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad Dawid la sidaa iyo nabad gali